Ugandana ciidamo ka socda Uganda ayaa lagu wadaa in la keeno Soomaaliya xilli cabsi xoogan laga qabo cudurka Ebola. dalka Uganda oo kamid ah dalalka uu ka jiro cudurka halista ah ee Ebola ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya u dirayo ciidamo kamid ah kuwa midowga Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan AMISOM. taas oo cabsi weyn gelisay shacabka Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arrintan ka hadal. ciidamada ay xukuumadda Kampala u soo dirayso Soomaaliya oo police ayaa tiradooda lagu sheegay 160 askari kuwaas oo dhawaan dhamaystay tababar waxayna ciidamadan isugu jiraan rag iyo dumar. guddi loo xil saaray qiimeynta ciidamadan oo kuwa police ayaa waxa ay doonayaan inay tagaan xeriyooyinka ay tababarka ku qaadanayaan kuwaas oo ku yaala dalka Uganda. sidoo kalena taliye ku-xigeenka booliska Uganda ee qaybta nabadgelyada ayaa sheegay in saraakiishan booliska ee Uganda ay Soomaaliya tagi doonaan dhamaadka bishan soo socota ee sanadkan aynu ku guday. dhanka kalena wararka ka imaanaya dhanka maamulka Galmudug faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan kulamo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamreeb ee xarunta gobolka Galguduud. kulamadan ayaa ahaa kuwa isdaba joog oo u dhaxeeyay madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inay labada dhinac ka wada hadleen xaaladda Galmudug gaar ahaan xaaladda arrimaha doorashada ee maamulkaasi. halka ay kulamadu ka socdaan ayaa warbaahinta Daljoog media u xaqiijiyay in ay dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda Galmudug ay ka heshiyeen arrimo dhowr ah. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Mastar Ducaale Geelle Xaaf ayaa ilaa iyo hadda wax kulan la qaadan wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Dhuusamreeb ee xarunta maamulka Galmudug. dhinacyada isku haya siyaasadda Galmudug ayaa kala taagnaa qir iyo qir waxaase xaaladdu ay sii xumaatay kadib markii maalmo ka hor ay xukuumadda Soomaaliya ku dhawaaqday in doorasho la qaban doono taas oo qusaysa maamulka Galmudug. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku siiyay hay'adaha hirgelinta sharciyada Soomaaliya ee dalka Mareykanka inay soo qabqabtaan dadka muhaajiriinta ee go'aamada musaafiriintooda ay horay u gaadhay dawladdu. howlgalkan lagu baacsanayo dadka muhaajiriinta ayaa bilaaban doona maalinimada Axadda ee Barito sida ay ku waramayaan warbaahinta dalka Mareykanka. howlgalkan ayaa markii ugu horeysay waxaa shaacisay jariirada caanka ee The Washington Post oo sheegtay inuu ka bilaaban doono howlgalkani maalinimada Axadda dalweynaha Mareykanka iyadoona lagu beegsanayo in ka badan 2,000 oo qoys oo ku nool dalka Mareykanka si sharci darro ah. magaalooyinka la filayo inuu ka bilaabo baacsiga dadka muhaajiriinta ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Chicago, Miami iyo waliba Los Angeles. Washington Post ayaa waxa ay sheegtay in xogtan lala xiriirinayo soo qabqabashada dadkan ay ka soo heshay 3 sarkaal oo ka tirsan waaxda socdaalka. dadweynaha reer Mauritania ayaa maanta u dareeray doorasho laga yaabo inay noqoto tii u horeysay oo si dimuqraadiyadda xukunka dalkaasi loola kala wareegatan iyo markii dalka ku yaala galbeedka Afrika uu madax banaanidiisa qaatay. madaxweyne Maxamed Cabdilcasiis ayaana xukunka Afgambi ku qabsan sanadii 2008 balse haatan waxa uu ogolaaday inuu iscasilo. in ka badan 1 milyan oo qof ayaana sharci u haysta inay codeeyaan doorashada la filayo inay dhacdo maalinimada Sabtida hadduu Allah awoodo la idmo. 3 musharax ayaana u tartamaya madaxtinimada dalkaasi haatan. musharaxiinta mucaaradka waxay ogolaadeen in ay ka qayb galaan doorashada iyagoo oo dhowr jeer oo hore qaadacay. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa ballan qaaday in ay doorashadani noqon doonto mid xor iyo xalaal ah walow ay jiraan eedeymo mucaaradku ay dawladda u jeediyeen.